gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta maamulka gobolka Banaadir Marwo Basma Caamir Jikeyti ayaa maanta daahfurtay barnaamijka hiigsiga caasimadda Muqdisho ee kulanka la tashiga carruurta gaar ahaan kuwa wax ka barta iskoolada Muqdisho. kulanka waxaa soo xaadiray ilaa 60 arday oo ka kala yimid 5 degmo oo ka tirsan gobolka Banaadir waxaana uu socon doonaa 2 maalin ee soo socota. barnaamijkan waxaa soo qaban qaabiyay agaasinka qorsheynta maamulka gobolka Banaadir waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda hoose. ugu horreyn kulanka waxaa daahfuray agaasimaha guud ee agaasinka qorsheynta Mudane Cabduqaadir Dalxa waxaana uu sharaxay ujeedada kulanka. Carruurta inay tala ku yeeshaan horumarka magaalooyinka waa qayb ka mid ah xuquuqdooda. waxay xaq u leeyihiin carruurta iyo intii waalidkooda ah inay tala ku yeeshaan sida ay u ekaanayso magaalada Muqdisho. hadda waxa ka timideen xaafado iyo waxa laga yaabaa qaarkiid iskuuleena ka timideen wadooyin ayaa soo marteen oo magaalada Muqdisho halkan soo gaarteen. waxa la hubaa inaad soo gaarista halkan soo gaarteen aad caqabado badan aragteen markaad noqonaysiin aad caqabado kala aragtaan iskuulka markaad joogtiin inaad caqabad la kulantiin imtixaanaadka markaad galaysiin inaad caqabad la kulantiin caafimaad markaad u baahanto sidoo kale inaad arkaysaa caqabad la kulanto waalidkii inuu asaguna haysto caqabado badan oo ay ka mid tahay tii dhaqaalaha dhibaatooyinkaasi marka u gaarka ah carruurta waxyaabaha la rabo waaye in madashan marka aad looga hadlo si ay qayb uga noqoto marka hiigsiga caasimadda. dhinaca kale waxaa goobta ka hadlay agaasimaha guud ee waxbarashada Mudane Cabdiraxmaan Cumar iyo agaasimaha isku xirka degmooyinka gobolka Banaadir Dhagacade. meeshan waa meesha lagu dhiso dadka waa meesha la rabo bari marka dadka hortagtid inaad hadashid iyo inaad mustaqbalka si agaasimaha sheegayeen oo kale aan noqoto hogaamiyihii dadka marka anaga ardada ahayn aan dhigi jiray waxa tiin mustaqbalka wadanka madaxa noqon doontaan kana noqon doontaan oo ficlan way dhacday anaga haddaan nahay dhalinyaradii u soo baxay gobolkan ay wax ku baranaysay maxaa noogu talagalay maamulka gobolka Banaadir muxuu ku talagalay maxay tahay qorshaheena soo socota 10 sano soo socda sidee la rabaa in qorshaha maxaana la kugu daray rabaa waxaana la kugu daray maxay tahay su'aalahaas oo dhan in kala ba inaad keentaan halka iyo jawaabaha su'aalahaasna aqeyn haddana ka noqotaan sababta idinka baahiyiin si fiican warqabtaan. waxaan ku faraxsanahay maamulka gobolka Banaadir ee uu hogaaminayo gudoomiye Cumar Finch iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada oo la joogta iyo agaasimayaashiisu inay taariikhda dib u xusiistaan jiilka aan laga maarmin oo lama huraanka ah inay dib u xasuustaan oo ay la ururiyo oo aan suuqiin keenno oo aan su'aalo idin weydiino idinkana maxaad rabtaan aan general waa markii ugu horeysay mar labaad aan ku celinayaa oo barnaamijkan gobolka Banaadir laga fulinayo inta anigu aan joogay haddaan khaldanayn waxaan leeyahay marka carruurtaydi soo dhawaada waxa la idinku yeeray fahma meesha la idin wadana fahma waxaan idin rajaynayaa inaad guuleysan doontaan. ugu dambeyntiina waxaa kulanka soo xiray gudoomiye ku-xigeenka dhanka arrimaha bulshada Basma Caamir Jikeyti. adduunka waa horumaray waxa lagu horumarayna waa aqoontii laga aruuriyay carruurta Soomaaliyeed fikrado maskax saliim ah aqoon-yahano wax walba aad iskugu jirtaan waxaan rajaynayaa casharada qaadanaysaan inaad si fiican fikradihiina u bixisaan annagana inaan fikradihiina aan ku dhisno magaaladaneeti waxna aan ugu bedelno ayaan u taaganahay aadaan idinkaga mahadcelinaynaa waqtigiina qaaliga maanta inaan nasiib u yeelataan qaybta bartamaha ee gobolka Banaadir in lagu daafuro barnaamijkaneeti aadaan idinkaga mahadcelina waqtiga qaaliga waxaan rajaynaynaa inuu ka soo bixi doono fikrado badan oo maanta aan la ogeyn magaaladan sidee noqonayso carruurtii maskaxdeeda ka soo maaxatay inay idinka noqotaan. barnaamijkan wada tashiga waxaa muddooyinkii dambeba dadaal ku bixinay maamulka gobolka Banaadir waxaana ka soo qayb qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaasoo aragtidooda iyo talooyinkooda soo bandhigay waxaana maanta furmay kulankii la tashiga carruurta gaar ahaan kuwa wax ka barta magaalada Muqdisho. Shukri Cumar Yuusuf, Banaadir TV, magaalada Muqdisho.